dhacdo la yaab leh oo aad looga hadlayo magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa galbis aroos oo isu bedelay furiin. Habeenkii galbiska arooskeeda ayaa ninka arooska hooyadii ku tiri hooyo aan gaadhigiina idinla raaco ilaa iyo hoolka arooska si aan farxadda idinla qaato. Indhihiina ayaan ka muuqata farxad, waxaan doonayaa hooyo inaan farxad aan idinla qaato oo aan dareemo farxad. Haya ayuu yiri hooyo soo raac gaadhiga wiilkeedii. balse aroosadda oo diidmo muujisay ayaa gaashaanka u daruurtay in hooyadaasi ay soo raacdo gaadhiga arooska. maya ayay tiri, inna raaci mayso ee kuwa dambe ha raacdo maamadu. haddaba maxaa dhacay markuu hadalkaasi dhawaqaasi qalbiga kaabanaya uu ka maqlay xaaskiisa? barnaamijka ayaynu ku dahqaadaynaa, ha yeeshee daawado intaynan barnaamijka u gudagelin, haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaadan la wadaag, kusoo dhawaada barnaamijka. waxaa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa galbis aroos isu bedelay furiin lagu kala yaacay. habeenkii galbiska arooskooda ayaa ninka arooska hooyadii ku tiri hooyo aan gaadhigiina idinla raaco ilaa iyo hoolka arooska si aan farxadda indhihiina ka muuqata aan idinla dareemo. balse wiilkeedii ayaa yiri haye hooyo gaadhiga soo raac. balse aroosadda oo xaaskiisa ayaa diidmo muujisay oo gaashaanka u daruurtay, waxayna tiri maya inala raaci mayso ee kuwa dambe ha raacdo iyadoo kor u qaylinaysa. jawigii goobta ayaa hal mar isu bedelay buuq kadib markii ninkii isla goobtii uu ku furay xaaskiisii. heshiisiin qoysaska labada dhinac ay sameeyeen ayaan suurtogelin oo lagu guuldaraystay. xataa hooyadii oo tiri hooyo anaa gawaadhida dambe soo raacaya ee ha iska furin xaaskaaga. kamuu yeelin, dhagaha ayuuna ka furaystay oo wuxuu ku adkaystay go'aankiisa isagoona yidhi naagta noloshayda aan koob aaminay ee aan doonayaan mustaqbal aan la wadaago aan hooyaday ixtiraamayn, ixtiraam darra kula kacday, naag iima noqonayso, mana rabo inaan tan mustaqbal aan la wadaago. hooyadanna kuma doorsanayo buu yidhi, hooyaday dhashay 9 bilood uurkaygu siday. gabadhan aroosadda ahayd ee iyadoo aanba aqal gelin la furay ayaa ka carartay gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. waa markii horreysay ee guud ahaanba geyga Soomaalida ay ka dhacdo in caruusadda xafladii galbiska oo lagu jiro la furo iyadoona diiday in sodohdeed ay gaadhiga la fuusho intaa laga gaadhayo hoolka arooska. wiilka arooska ah oo aad u jecel hooyadiis ayaa go'aan adag qaatay oo bartii ku furay, xitaa wuxuu dhagaha ka furaystay waawaantii la waday. bulshada Soomaalida intooda badan ayaa aad u taageertay go'aanka u qaatay wiilkaasi, gaar ahaan dhinaca social media. hooyadiis xitaa waa u diiday inuu joojiyo furiinka, dhagaha ayuu ka furaystay. gabadha eheladeeda qaar ayaa xitaa aad u soo dhaweeyey go'aankan uu qaatay wiilkani, waxayna sheegeen in gabadhoodu ay tahay caasi waalideyn. warar ayaa sheegaya in gabadhan la furay xitaa aan hooyadeed aysan ula dhaqmi jirin si ixtiraam leh oo ahayd gabadh caasi waalideyna, sida ay sheegeen dadka aqoonta u lahaa gabadhan. dhacdadan ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa aad looga hadalhayaa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland iyo weliba guud ahaanba baraha social media sida Facebook, TikTok, Instagram iyo YouTube oo 24 saacadood u dambeysay lagu qaadaadhigayay. maaha markii horreysay ee xaflad furiin ay caalamka ka dhacdo iyadoo xaflad galbisa lagu jiro. wadamada carabta ayay u badan tahay intooda badan. sanadii 2019 ayay ahayd wiil qadariyaan uu guursaday gabadh qadariyaana, balse gabadhii aroosadda ahayd ay diiday in hoolka ay soo gasho. wiilka hooyadiis oo ahayd sodohdeed uu isna halkaasi ku furay. balse dhacdadan ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa tii ugu horreysay ee ka dhacda guud ahaanba geyga Soomaalida. gabadhan la furay
ayaa la sheegay inay ka carartay isla habeenkiiba gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. Gabadhan ayaa waxaa la sheegay inay ahayd gabadh caasi waalideyna markeedii hore toba oo aysan ku wanaagsanayn si wanaagsan aysan la dhaqmi jirin hooyadeedii iyada dhashay. Mar haddii hooyadeedii iyada dhashay ku ahayd caasi waalideyn, ma ninkeedu hooyadiis ayay ula dhaqmaysaa si waalidnimo oo ixtiraam ay ku dheehan tahay. Waxa kaliya ay diiday ayaa inay gaariga raacdo oo ay tagto xafladda arooska si ay hooyadan oo codsatay. Waxaan doonayaa bay tiraan xafladday geystaan si aan indhihiina farxadda ka muuqata aan idinla qaybso aan idinla dareemo maadaama wiilkaygu aroos yahay maanta. Hooyadan ayaa waxaa la sheegay inay tahaysatay wiilka oo kaliya, gabdhaasina ay la dhasheen. Haddaba dhacdadan ayaa aad looga hadalhayaa guud ahaanba baraha bulshada, sida ay sheegeen dadka ehelada ah ee gabadhan aadka u yaqaanay, gaar ahaan dadkii iskuulka soo wada dhigteen iyo dadkii xaafadda. Waxay sheegeen inaysan gabadhani aysan ahayn markeedii hore toba gabadh u wanaagsan una jajaban dadka waalidka. Haddaba daawada sidee u aragtaa dhacdadan in wiilkani uu xafladii galbiska arooska uu furo hooyadiis dartiis markii ay diiday inuu gaariga la raaco? ma sax ayay ahayd go'aankaasi? sidee u aragtaa sax iyo khalad go'aankan iyo ficilka ninkan uu qaatay? Fadlan ra'yigaaga commentiga nagu reeb. Gabadhan aroosadda ahayd ee iyadoo aanba aqal gelin la furay ayaa ka carartay gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland. waa markii horeysay ee guud ahaan bagayga Soomaalida ay ka dhacdo in caruusadda xafladii galbiska oo lagu jiro la furo iyadoona diiday in sodohdeed ay gaariga la fuusho inta laga gaarayo hoolka arooska. wiilka arooska ah oo aad u jecel hooyadiis ayaa go'aan adag qaatay oo bartii ku furay, xitaa wuxuu dhagaha ka furaystay waawaantii la waday. bulshada Soomaalida intooda badan ayaa aad u taageertay go'aanka uu qaatay wiilkaasi, gaar ahaan dhinaca social media. hooyadiis xitaa waa u diiday inuu joojiyo furiinka, dhagaha ayuu ka furaystay. gabadha eheladeeda qaar ayaa xitaa aad u soo dhaweeyay go'aankan uu qaatay wiilkani, waxayna sheegeen in gabadhoodu ay tahay caasi waalideyn. warar ayaa sheegaya in gabadhan la furay xitaa aan hooyadeed aysan ula dhaqmi jirin si ixtiraam leh oo ahayd gabadh caasi waalideyna, sida ay sheegeen dadka aqoonta u lahaa gabadhan. dhacdadan ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland ayaa aad looga hadalhayaa magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland iyo weliba guud ahaanba baraha social media sida Facebook, TikTok, Instagram iyo YouTube. oo 24 saacadood u dambeysay lagu